بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع كسابسن أباره soo noqonaya waa mid runtii loo baahan yahay Soomaali inay wax iska weydiiso ka tashato ka tabaabashaysato ilaahay iyagoo tala saaranayana ay isku dayaan wixii ay ka qaban karaan inay ka qabtaan laakiin bal intaynaanu wax ka qabasho u gudbin marka hore waxaa mudan in la isweydiiyo su'aalo dhowr ah oo aan isleeyahay mawduucan ayay hagi karaan qaabkaan uga hadlayno waa marka koowaade dhibaatooyinka abaaruhu ma sidan bay ahaayeen weligood mise way ka sii dareen abaaruhu ma wax dabiici ahbaa mise waa wax uu bini aadam ku lug leeyahay maxay abaaruhu u soo noqnoqdaan ama si kale aan isu weydiinay maxay xilliyadii roobabku u soo gaabtaan ama looba waayaa sidee abaaruhu u saameeyaan nolosheenna dhibaatadan wax ma ka qaban karnaa dowladdu kaalin ma ku leedahay wax ka qabashadeeda dadweynuhu wax ma ka qaban karaan su'aalahan iyo su'aalo la mid ah ayaa runtii u baahan isweydiin sida aad ka aragtaan sawirkan waxaan soo xasuustaa dhibaatada abaaraha markii aan ka hadlayno markaan caruurnimadii nalooga sheekayn jiray sheekooyinkii juxa waxaa la yidhi maalin isagoo geed xaabo guraya baalaan uu saarnaa buu goynayay markaasaa nin soo maro wuxuu yidhi wari allaantaan haddaa sii goyso ogow dhulkaa ku soo dhici kartaa waadna maaragtay dhaawacmi kartaa haddaad u fiirsato Soomaaliya waxaad moodaa sidii aan dhirta u jaraynay in waxa la yiraahdo ecosystem ama bay'ada oo dhan oo leh wax walba oo nool ah oo ku dhex nool dhirtaas waxaa harsada dhir kale oo yar waxaa ka hoos baxa caws waxaa ka hoos baxa ubax waxaa dhirtaas iyo cawskaas iyo waxaasoo kale ku dhex nool xayawaanaad yaryar iyo kuwa waaweynba waxaa ku dhex nool cayayaan mid walbaba ilaahay ugu talagalay shaqo gaara inuu qabto oo bay'adaas isku wada nool ah shinnidii ubaxa samaynaysay balanbaalistii ubaxa kale u kala qaadaysay bacriminta iyo waxay la mid ah haddii dhirtii waaweyneyd la jaro dee waxaasoo dhan meeshay ka baxayaan laakiin bal aan usoo noqone Soomaaliya xilli waxaa jirtay ay lahayd kaymo dhirteeduna ay badnayd doog ahayd waad u jeedaan sawirkan isaga ah oo na tusi kara waqtigaas isaga ah maxaa ka dambeeyey waxaa ka dambeeyey dhirtii inaan gurno yar iyo weyn rag iyo haween dhulkii aan xaalufino 20 sano ka hor Soomaaliya waxay ahayd 64% dhul cagaar ah oo dhirtu ka baxdo maanta waxaan haysanaa 18% baa noo haray dhirtaas aan jarro waa la gubaa si looga sameeyo dhuxushaasoo magaalooyinka loo qaado ama dibadda xataa loo dhoofiyo maxayna dhaxal siisay taas waxayna dhaxal siisay nabaad guur iyo xoolihii oo dhammaada waxayna dhaxal siisay barakac iyo dadkii miyiga ku noolaa oo magaalooyinkii soo duldega ayagoo aan u diyaarsanayn noloshii iyo xirfadihii iyo aqoontii magaalada
oo halkaas ay ku dayacmaan ama loogu raadiyo hay-ado u gargaara oo noloshooda dhanba gacanta ku haya. waxayna dhaxal siisay dhirtaas aan nabaad guurinay iyo dhirta aan jarnay oo ka dhashay oon iyo gaajo dadkeennay sumcad xumo iyo bahdil u keenay. waxayna dhaxal siisay colaado. ogaada geedka maanta la jaro iyo colaadda inay isku xiran yihiin. colaadda oo laba nooc ah. mid horta haddii ay yiraahdaan biyihii iyo nabaadkii xoolo dhaqatadeennu waxay isugu imaanayaan wixii oo yar waan isku dilayaan. dadkii barakacayaashaha magaalooyinka yimid ayagana dadka ay soo duldegeen iyo dhulalkii iyo dhibaatooyin kale oo halkaas ka timidna way jiri doontaa. waxaase ka sii daran in dadku markay beeraha u bixi waayaan xoolihii ka dhammaadeen loo baahan doono inay maaragtaa u yimaadaan nimanka xag jirka ahaa oo yiraahdaan kaalaya annagaa waxaad u dagaalantaan idiin hayna lacagna idinkugu darayna oo sidaas carruurtii iyo dhallinyaradii nalooga wato oo ay ku biiraan dadkaas. marka dhirta la jaro oo dhulka la nabaad guuriyo oo uu gawaan noqdo oo heerkulka hawada uu kor kaco waxaa dhacaysa in xilligii roobka uu soo gaabto. markuu soo gaabto roobkaas da'ana roobkii uu isu bedelo fatahaad. haddana waa dhibaato cusub oo dudumisay buundooyinkii, guryihii, baabi'isay xoolihii. waa dhibaato kale oo iyadana halkaa ka jirta. wax ma ka bedeli karnaa Soomaaliya? ilaahay quraankiisa wuxuu ku yidhi in allaha laa yuqayyiru maa biqowmin xataa yuqayyiru maa bianfusihim. ilaahay xaaladda dadka waxba kama bedelo ilaa ay marka hore ayagu naftooda midda ah ay wax ka bedelaan. xal waara waa suurtagal haddii aan taas madaxeena gelinno ilaahayna la kaashano. waxaa jira wax la yidhaahdo renewable energy ama energy-ga aan dhammaan oo iscusboonaysiiya. maxaa ka mid a? waxaa ka mid a qoraxda, waxaa ka mid a hawada, waxaa ka mid a biyaha oo koronto laga dhaliyo. waxyaalaha noocaas oo kale ah ayaa waxaa loo isticmaali karaa in dhuxushaan la shidaayo aan ku bedelano. maanta adduunku wuxuu marayaa in baabuurta xataa lagu wado awoodda ka dhalata qoraxda. waxaa la marayaa maanta in la samaysto daamam laga dhaliyo koronto shida wadamo dhan iyo magaalooyin dhan. waxaa la marayaa in koronto laga dhaliyo hawada. waxaa kaloo loo baahan yahay inaan ka wada hadalno sidee khayraadka biyaha ah oo ilaahay ku siiyey loo maamulaa, looga faa'iidaystaa. dad baa maanta jira gurta sida beeraha loo gurto u gurta biyaha oo biyaha roobka loo qabto oo looga faa'iidaysto. biyahan fatahaadda ah si waxaa jirta aad u kaydsan karto. waxaa loo baahan yahay in dib u kaymayn aan samayno oo dhir la abuuro. waxaa loo baahan yahay beeraha inaan biyaha badan lagu khasaarin, qaab la helo biyahaas ayagana loo kontrolo. maanta oo abaartan hadda jirtaa ay si ba'an u hayso dalka oo dhan, dad badan oo naga mid ahna ay si tabarucaada iyo ilaahay dartiis ay uga qayb qaateen inay biyo u dhaamiyaan
degaanadii Soomaaliyeed dadkaasu ay deganaayeen waa wax horta hadda loo baahan yahay oo degdeg ah in dadkaas biyo la gaaro laakiin bal aynu ka fikirro sidee ceelal meelo istiraatiijiga oo dadkaasu ay ku badan yihiin looga sameeyaa si biyaha loo cabo iyo kuwa xoolaha la siistaba ay uga suuragali karaan way jiraan dad si isxilqaan ah intaa hawsha u wada laakiin in si dal ahaan iyo community ahaan ah ayaana looga baahan yahay haddaad fiiriso maanta waa dalkan ugu dhagan oo dariska nala ah oo Ethiopia waxay samaysteen biyo xireen aad weyn biyo xireenkaas waxaa ku kacday lacag ku dhow $5 bilyan oo dollar Soomaaliya haddaa fiirsana 30 sano oo la soo dhaafay kaliya shanta dal ee ugu dhaqaale bixinta badan iyo hay'adaha ay wax siiyaanba marka la isku daro lacagta ay gargaarka bini'aadanimo kaliya ku bixiyeen waxay iyadana ku dhowdahay $5 bilyan oo dollar annagu maxaan ka haynaa 5 bilyan oo dollar Ethiopia maxay uga faa'iidaysatay biyo xireenka noocaas oo kale ah marka haysato mar biyo ku kaydinaya oo waqtigii abaar jirto baad ka faa'iidaysan kartaa laakiin sanadkii intiisa kale oo dhan waxaa laga dhaliyaa energy waxaa laga dhaliyaa korontadaas waxaa laga iibiyaa dalalka dariska la 5 bilyan ee Ethiopia waxay ka samaysatay damkaas 5 bilyan oo Soomaaliyana waxa laga mahay waa la cunay waxa la samayn karaa 5 bilyan iska daayay 5 meelood oo hal kaliya haddii dhulalkaas miyiga aan u samayno waro biyaha waqtiga roobka ah uu da'o ama fatahaaduhu dhacaan biyaha lagu kaydiyo waxaan heli karnaa wax biyo ku filan in dadka reer baadiyaha ah uu kaga gudbo xilliga abaaraha ba'ani ay jiraan waa mahadsantihiin maanta intaasaan rabay inaan ka hadlo oo aan bal isku xiro dhirta la jaraayo dhulka la nabaad guuriyay abaarta uu keenay heerkulka hawada kor u kacay roobabka daahay colaadda timid dadka barakacay fatahaadaha yimid inay isku wada xiran yihiin oo kulligood ay ku soo noqonayso nimcadaas Ilaahayna siiyay oo aan garan weynay oo aan xaalufinay dhulkeennii taas ayaa waxay noo keentay dhibaatooyin aad u tiro badan caqligu ha shaqeeyo waa mahadsantiin